magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Midug maanta waxaa ka dhacay kulamo aan loo kala kicin kuwaas oo hogaaminayaan odayaal dhaqameed markaas ka soo jeeda gobolka Midug waxaa laga wada hadlayaa xiisad maalmahanba ka taagneed magaalada Gaalkacyo ee gobolka Midug halkaasi maalmaha soo aadan waxaa ku wajahan ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac khilaafka u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland markan saameyn wuxuu ku yeelanayaa maamulka Galmudug dhawaan ayay ahayd markii wasiirka qorsheynta maamulka Galmudug oo dowlad goboleedka Puntland uu ku eedeeyay in markaasi ay horinayso colaad markaasi labada maamul goboleed oo wadaaga magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Midug waxay ka tirsan tahay labada maamul goboleed ee Puntland iyo sidoo kale maamulka Galmudug waxaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay xiisada ka jirta dowlad goboleedka Puntland iyo sidoo kale maamulka ayraada waa dowladda federaalka Soomaaliya dhinaca kale maamulka Puntland gacanta wuxuu ku dhigay hub iyo markaasi agab ciidan oo loo waday maamulka waqooyi bari Soomaaliya gaar ahaan magaalada Laascaanood ganacsatadii lahayd markaan waa markaasi hubkaasi ayaa iyaguna hadlay waxay tilmaameen in hubkan oo ahayn hub lagu carqaladeynayo ammaanka maamulka Puntland balse uu yahay hub loo wada magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Midug wararkii ugu dambeeyay ayaa muuqaalkan idin kula wadaagi doonaa soo dhawaada qaartana daawanaysay waa maalinimo Talaada taariikhdu ku aasiisan tahay 27 ayraada waa 28 bisha 7 Julaay sanada 2026 haddii aynu ku horeyno magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Midug maanta waxaa ka dhacay kulamo kala duwan kuwaas oo horkacayaan odayaal dhaqameedyo ka soo jeeda gobolka Midug taasoo ah sidii looga shaqeyn lahaa amniga magaalada Gaalkacyo ee gobolka Midug kulankan waxa uu ka dhacay is-aragiisa koobaad dhinaca Puntland maamusho halkaasi mas'uuliyiin ka soo jeeday sidoo kale odayaal dhaqameedyo iyo kuwa ka soo jeeda maamulka Galmudug ayaa halkaasi ku kulmay iyadoo markii dambe la gaaray dhinaca Galmudug maamusho waxaa laga shaqeynayaa sidii ammaanka magaalada loo sugi lahaa iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya ciidamo fara badan ay geysay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Midug taasi oo markaasi ah mid xiisada sii horanaysa dhinaca kale ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac ayaa la sheegay in toddobaadyada soo socda uu gaari doono magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Midug waxaa markaasi safarkiisa la sheegay inuu markaasi uu ku soo aadayo iyadoo khilaafka u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland oo markaan soo shacbayo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac ayaana waxa la sheegay inuu halkaasi u tagi doono sidii markaasi looga shaqeyn lahaa ammaanka magaalada Gaalkacyo ee gobolka Midug iyo sidoo kale waa markaasi wada hadallo la galayo xukuumadda uu hogaamiyo Saciid Cabdullaahi Deni maamulka Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa soo jiitamaya khilaaf u dhaxeeya iyadoo sidoo kale maamulka Puntland oo maamul goboleedyada dariska la sida maamulka waqooyi bari Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Galmudug uu ku eedeeyay in markaasi loo adeegsanayo waa horin colaadeed oo sidoo kale ama markaasi agabyo military ama markaasi agabyo ciidan laga soo daabulayo magaalooyin kala duwan iyadoo la geynayo garoomada ay maamusho maamulka Galmudug iyo sidoo kale maamulka waqooyi bari Soomaaliya Saciid Cabdullaahi Deni oo dhawaan hadlayay waxa uu sheegay in markaasi labadaas maamul ay yihiin maamulada kaliya ay loo adeegsan doono maamulka Puntland Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ama markaasi ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac ayaana la sheegay in toddobaadyada soo aadan uu qorsheynayo inuu gaaro magaalada Gaalkacyo ee gobolka Midug halkaasi wuxuu kula kulmi doonaa wufuud kala duwan oo ka socda dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale taliyayaasha ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya waxaana markaasi ku sugan halkaasi taliyayaal kala duwan oo markaasi ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ciidamadii BSF ee markaasi ka goostay maamulka Puntland ayaa iyagu ku sugan magaalada Gaalkacyo gaar ahaan garabka ay maamusho maamulka Galmudug shalay ayay ahayd markii gawaari ciidan ay wataan ay gaareen garabka ay maamusho maamulka Puntland waxaana markaasi soo ifbaxaya in markaasi dowladda federaalka Soomaaliya ay xoog saarayso sidii markaasi ay uga shaqeyn lahayd in ciidamo fara badan la geeyo magaalada Gaalkacyo gobolka Midug iyo sidoo kale magaalooyinka kale ee u dhow magaalada Gaalkacyo iyo gobolka Midug ciidamada BSF oo dhawaan kula dagaalamay madaxweynaha maamulka Puntland ciidamo wato ee markaasi aaga lagu magacaabo oo u dhow magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaana waxa markaasi ay tilmaamayaan wararka qaar in ciidamadan ay dowladda ay mishaar siinayso oo ay markaasi kafaalo qaaday mishaarkooda waxaana la sheegay in hub iyo markaasi agabyo kale halkaasi loo geeyay waxaana dhinaca kala soconaya waan ay wadaan odayaasha dhaqanka magaalada Gaalkacyo ee gobolka Midug halkaasi oo la doonayo in lagu dhaxdhaxaadiyo xiisada ka dhaxaysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Galmudug oo markaan u muuqata in markaasi ay faraha ka sii baxday
odayaasha dhaqanka ayaa kulamo kala duwan maanta waxay ka wadeen magaalada Gaalkacyo iyo sidoo kale iyagoo la kumariyay magaalooyinka kala duwan ee maamulka Galmudug Aaraada waa markaasi ama magaalada Gaalkacyo oo halkaasi ay ka wadeen waan lagu markaasi dhexdhexaadinayo labada maamul goboleed ee sidoo kale Puntland iyo markaasi Galmudug. odayaashu waxay sheegeen inaan lagu milmin xiisadan siyaasadeed ee ka soo cusboonaatay maamulka Puntland taasoo u dhaxayso dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland. waxay tilmaameen xiisadan ay tahay mid markaasi u dhaxayso mas'uuliyiinta ugu sarreeya ee dalka balse waxay ka codsadeen odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale Aaraada waa markaasi ciidamada ku sugan magaalada Gaalkacyo inay ka shaqeeyaan ammaanka magaalada cidna aysan wax u dhibin. dhinaca kale maamulka Puntland gacanta waxa uu ku dhigay gaari waday hub iyo markaasi saanad ciidan oo u socday magaalada Laascaanood ee maamulka Waqooyi Bari Soomaaliya. gaarigan ayaa ciidamada ammaanka magaalada Gaalkacyo gaar ahaan garabka ay Puntland ay maamusho ciidamo oo wato Saciid Cabdullaahi Deni ka marqaata ayaana gacanta waxay ku dhigeen gaarigan oo la sheegay inuu ku jeeday magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug Aaraada waa markaasi magaalada Laascaanood ee xarunta maamulka Waqooyi Bari Soomaaliya. waxay sheegeen in hubkan loo waday magaalada Gaalkacyana ay tahay meesha ay dowladda federaalka Soomaaliya ay ka soo abaabulayso dagaal ay doonayso inay ku qaado magaalooyinka Puntland iyadoo markaasi Saciid Cabdullaahi Deni oo ciidamo fara badan oo ka marqaata isaga oo dhigay wadooyinka xiriiriya magaalada Gaalkacyo iyo sidoo kale magaalada Garowe oo ah xarunta maamulka Puntland ee ku meel gaarka ahna caasimadda gobolka Nugaal ee markaasi Garowe. waxaa markaasi la sheegay gaaridan inay markaasi ciidamada Saciid Cabdullaahi Deni gacanta ku dhigeen ugu dambeeyna ay markaasi ay la wareegeen hubkii iyo markaasi tuutayaal ciidan oo watay. muuqaalkan aad arkaysaan waa mid ka mid ah ganacsatadii dadka deegaanka oo markaasi sheegay in ciidamada Puntland ay si awooda ay markaasi ku bilaaqaysteen agabyo kala duwan oo u socday magaalada Laascaanood ee xarunta maamulka Waqooyi Bari Soomaaliya. khilaafka ka dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland ayaa markan u muuqday inuu saameyn kala yeeshay iyadoo ciidamadii BSF ay gaareen dhanka maamulka Galmudug. dhawaan waxaa la qorsheynayaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac inuu gaaro magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug waxayna taasi ka dhigan tahay in khilaafka u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland markan dowladda waa markaasi federaalka ee Soomaaliya ay doonayso inay kaga faa'iideysato magaalooyinka ay maamusho Galmudug halkaas oo ciidamo fara badan la geynayo. ciidamadii BSF iyagu la dagaalamay Saciid Cabdullaahi Deni ayaa ku sugan magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug garabka ay Puntland markaasi Galmudug ay maamusho waxaana halkaas laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan iyadoo maanta kulamo kala duwan ay ka socdaan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. qalabkii ay qabteen ciidamada Puntland ee markaasi Saciid Cabdullaahi Deni oo horkacaya ayaa iyagu sheegay in markaasi maxkamadda ay la tiigsan doonaan agabadan kala duwan oo markaasi si qarsoodi ah loo marsiinayay ciidamo markaasi ka marqaata Saciid Cabdullaahi Deni oo ku sugan magaalada Gaalkacyo agagaarkeeda iyadoo wadada xiriirisa magaalada Gaalkacyo iyo magaalada Garowe xarunta gobolka Nugaal ciidamo fara badan oo markaasi ka soo jeeda dowlad goboleedka Puntland lagu arkay. haddaba waxyaabaha ka soo kordha halkan ayaad ka daawan doontaan khiyaarta ma daawanaysa muuqaalka meel dheer gaarsiiya naguna soo bira si aad u heshaan xogii ugu dambeeyay khilaafka la dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland. aad baad mahadsantihiin.